Dallada dugsiyada Quraanka Kariimka Soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin ee ka dhisan caasimadda Kampala ee dalkan Uganda ayaa murtiyad ka soo saaray go'aanka ay dhowaan dowladda Uganda ku xirtay muddo bil ah dhammaan goobaha waxbarashada, cibaadada iyo goobaha ay dadweynaha isugu yimaadaan iyadoo laga baqayo cudurka halista ah ee COVID-19 oo dhibaato badan ku haya dunida. Dallada dugsiyada Quraanka Soomaaliyeed oo ay ku midaysan in ka badan 40 dugsi ayaa ugu horeyn gudoomiyaha dallada Sheekh Cumar Xuseen Nuur ka hadlay ujeedada kulankooda. Anagoo fiirinayna danta guud ee dadka Islaamka ah iyo dadka Soomaaliyeed ee wadankan qaxootiga ku ah ee caruurtooda Qur'aanka iyo diinka loo baro si Ilaahay uu u badbaadiyo wax walba oo markaas ku saabsan badbaadadooda oo looga hortagi kara inay dallada iyo gadoonkeeda u istaagaan isla markaasna iyagoo raacaya awaamirta wadankan uu leeyahay ee qofka ugu sareeyo madaxweynaha uu ka soo baxay. saadaradeed waxaan bulshada ka wacyigelinaynaa waxyaabaha lagu wacyigelinayo inay si toos u raacaan Ilaahayna ay tala saartaan. Dhanka kale afayeenka dallada Maxamuud Daawud Cabdi ayaa warbaahinta u akhriyay warmurtiyeedkii ka soo baxay dallada dugsiyada Quraanka Soomaaliyeed. Waxaan halkan idinkaga soo jeedinayaa war-saxaafadeedka guddiga midowga dugsiyada Soomaaliyeed ee Uganda kadib amarkii iyo go'aankii ka soo baxay madaxweynaha dowladda aan martida u nahay ee Uganda Mudane Museveni ee ku aadanaa xiritaanka goobaha waxbarashada iyo goobaha cibaadada iyo goobaha ay bulshada ku kulmaan ayay guddigu waxay soo saareen qodobada soo socdo. 1. laga bilaabo 21 bisha 3 2020 in dugsiyada yihiin fasax ilaa amar dambe oo dowladda ka soo baxay inta aan ka helayna insha Allah taala. sidoo kale wuxuu guddiga dallada ugu baaqayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Uganda inay muujiyaan taxadar una hoggaansamaan amarada iyo wax walba oo dowladda ka soo baxo si aan naftoodana wax dhib uga soo gaarin iyaga caruurtooda una badqabaan. qodobka saddexaad waxa weeyaan guddigu wuxuu ogeysiinayaa dhammaan macallimiinta dugsiyada inay noo baaqdeen dhammaan kulanadii ay dallada qaban jirtay ee looga arinsani jiray mustaqbalka dugsiyada iyo ardayda horumarintooda. gabagabadii u qaybsanaha arrimaha diinta iyo qaafta ee safaaradda Soomaaliya ee Uganda Sheekh Maxamuud Axmed Abikir oo kulanka goobjoog ka ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Uganda iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ku booriyay inay qaataan fariimaha ay bixinayaan wasaaradaha caafimaadka. midda kale ummadeena Soomaaliyeed waxaan baraarujin lahaa in ay qaataan fariimaha ay bixinayaan dadka caafimaadka ku takhasusay iyo madaxdooda oo ay isku celiyaan guryahooda ay isku celiyaan ay macnaha meelaha badan oo bulshooyinka isugu imaada ay joojiyaan oo ay sameeyaan wax waliba macnaha caafimaadkooda ay uga taxadiri karaan. gabi ahaanba maanta xalka masjidka Qadaafi sidan ayuu ahaa. Qadaafi masjidka oo ka mid ah masjidada ugu weyn ee dalkan Uganda ayaa maanta aan wax salaad ah lagu dukan. taasina waxay dhaqan gashay amarkii dowladda Uganda ka soo baxay kuna aadanaa in gabi ahaanba la xiro ama albaabada la isku dhafto goobaha lagu cibaadeysto. Yusuf Maxamed Macalin Kashmir raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Kampala.